بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق هو أحمد علي أحمد وعن هاي قرصورة كترستان محكمة جوال كنوغال تيتل كي هو قرصورة محكمة رفعان كجوال كنوغال أنا جو كوالية مقع قرصور كجوال كنوغال وعن ربها لك أن كآخرية هو الباهين تان لو ذاقنو قرال أي قرصور كجوال كنوغال أي قرين golaha wakiilada dawladda Puntland kaas oo garsoorku ay ku dacweynayaan wasaaradda maaliyadda ee dawladda Puntland qoraalku wuxuu qorayaa sida tan qoraalkan waxa la qoray 5 bishii 2018 ku golaha wakiilada ee dawladda Puntland Garowe ku wasaaradda cadaaladda dawladda Puntland Garowe ku wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dawladda Puntland Garowe og warbaahinta madaxa banaan fadhiyadooda og hay'adda xuquuqul aadanaha ee dawladda Puntland Garowe og wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland Garowe og xafiiska xeeraalinta guud ee dawladda Puntland Garowe og guddiga sare ee garsoorka dawladda Puntland Garowe og madaxweynaha dawladda Puntland Garowe ujeedo dacwad lid ku ah madaxda wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland dacwadaas oo ah xuquuq ka maqan garsoorka gobolka Nugaal annagoo ah garsoorka gobolka Nugaal kana kooban maxkamadda darajada koowaad ee degmada Garowe maxkamadda rafcaanka gobolka Nugaal iyo xeer ilaalinta gobolka Nugaal waxaan taariikhda kor ku qoran maalinta markay ahayd aanu madaxda ay warqadani sida tooska ah ugu socoto iyo kuwa ogeysiinta ku lehba halkan uga soo gudbinaynaa dacwad lid ku ah wasaaradda maaliyadda ee dawladda Puntland asbaabta dacwadan waa sida tan faahfaahinta dacwadda mudanayaal garsoorka gobolka Nugaal markuu arkay nidaamka iyo habsocodka shaqada maxkamadaha iyo xuquuqda ka maqan garsoorka gobolka Nugaal garsoorku markuu arkay in aan lahayn dhammaan agabkii xafiisyada garsoorku ku shaqeynayay sida khadkii waraaqihii faylashii buugaagtii shidaalkii internetkii dayactirkii qalabka iyo wixii la mid ahaa garsoorku markuu arkay inuusan haba yaraatee helin xuquuqdiisii daruuriga ahayd ee uu ku noolaanayay garsoorku markuu arkay inaanu garsooruhu wax dacwad ah geli karin go'aanna aanu gaari karin sharci ahaan iyo qaanuun ahaanba marka ay jiraan xaaladahan soo socda marka uu careysan yahay ama gaajeysan yahay ama tiiraayeysan yahay ama walwalsan yahay iyo wixii la mid ah garsoorku markuu arkay inuu garsooruhu mushaarkiisa ku leeyahay khasnada dawladda Puntland garsoorku markuu arkay in garsoorka dawladda xaq ugu leeyahay inay dawladdu mushaarkiisa siiso isla marka ay bishu dhamaato garsoorku markuu arkay in shaqaalaha dawladda Puntland uu dawladda xaq ugu leeyahay mushaar u qalma iyo daryeel jir ahaan iyo damiir ahaanba sida ku cad qodobka 37 ee dastuurka dawladda Puntland garsoorku markuu arkay caqabadaha tirada badan ee kor lagu soo sheegay aan ku soo sheegnay hadda ka horna aanu marar badan aan astakooyin arintan ku saabsan u gudbinay hay'adaha ay khusayso markasta oo wasaaradda maaliyadda mushaarka la weydiiyana ay ku jawaabayeen qofkii sidaa ku shaqeynaya ku shaqeeyo kii kalena ha iska tago taas oo ah wax baalmarsan nidaamka dawladnimo sidaa darteed annagoo ah garsoorka gobolka Nugaal waxaan mas'uuliyiinta ay sida tooska ah warqadani ugu socoto aan ka dalbanaynaa in si degdeg ah sharciga loo horkeeno wasaaradda maaliyadda ee dawladda Puntland loogana qaado garsoorka xuquuqda ay ku leeyihiin garsoorka gobolka Nugaal ma aanu helin wax mushaar ah muddo 19 bilood ah taas oo ah in cadaaladda Puntland laga dhigay mid howlgab ah oo aan shaqeynaynin garsoorka gobolka Nugaal
wuxuu la socodsiinayaa madaxda warqadan ay ku socoto ku xusan in haddii xuquuqda la bixin diido dhibaatooyinka aan ka soo waranayna aan si degdeg ah wax looga qaban in ay tahay garsoorkii oo la dumiyay iyo cadaaladii oo laga dhigay howlgab shaqaduna ay iskeed isu taagayso haddana shaqadu aanay u socon sidii la rabay uusan garsoorku mas'uuliyadda cawaaqibka ka dhasha aanu qaadi doonin waxa ku saxiixan qoraalkan garsoorayaasha kale ah Sheekh Aadan Axmed Maxamed gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Nugaal Sheekh Cabdinuur Aw Jaamac Aw Xuseen gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee Garowe Maxamed Nuur Faarax garsoore maxkamadda rafcaanka gobolka Nugaal Sheekh Axmed Ali Axmed garsoore maxkamadda rafcaanka gobolka Nugaal Sheekh Cabdiqani Mire Xirsi garsoore maxkamadda darajada koowaad Garowe Sheekh Maxamuud Cismaan Maxamuud garsoore maxkamadda darajada koowaad Garowe Maxamed Jaamac Faarax kaaliye maxkamadda rafcaanka gobolka Nugaal Cabdiqani Maxamuud Maxamed kaaliye maxkamadda rafcaanka gobolka Nugaal Jaamac Faarax Nuux kaaliye maxkamadda rafcaanka maxkamadda darajada koowaad Garowe Axmed Cabdullaahi Maxamuud kaaliye maxkamadda darajada koowaad degmada Garowe Bashiir Cabdilqaadir Saciid kaaliye maxkamadda darajada koowaad Garowe Maxamuud Cabdinuur Jaamac kaaliye waa kaaliyaha xafiiska xeeraaliyaha gobolka Nugaal wabillahi tawfiiq